war degdega daawadayaal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolkaasi nala daawada ciidamada oo howdka ugu sii daadanaya kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo difaacidii laga saaray oo ciidanka macuusliyada ay tilmaamayaan saad aragteenba waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gudaha u galay difaaci nabaddiidku ay ku lahaayeen iyagoo ciidanku dhimbilo rasaas ah ay ood uga qaadeen koox ku dhuumaalaysanayay gobolka Hiiraan qaasatan tuulooyin hoostaga deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa gudaha u galay sidoo kale ama saad ku aragteen muuqaalkeenaba difaaci dhowr ah ay nabaddiidku ay ku lahaayeen shakhsi kamid ah macuusleyda oo dagaalka qayb ka ahaa ayaa waxa uu tilmaam ka bixiyay saad muuqaalka ku daawateen baa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo gudaha uga saaray fariisamadii nabaddiidku ay ku dhuumaalaysanayeen howlgallada oo ahaa mid qorsheysan si wanaagsan loo soo abaabulay ay ciidamadu waxay ku guuleysteen inay u daataan fariisamadii kooxda nabaddiidku ay ku lahaayeen sidoo kale dagaalka waxa qayb weyn ka ahaa ciidanka macuusleyda ee gobolka Hiiraan ka dagaalama waxayna ciidanka sidoo kale ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab dagaal ka dhacay deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu socday muddo 3 saacadood ah waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab godadka ugu waaweyn ee deegaanadaasi ku yaala ay ciidamadu u daateen waxayna sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado military oo ka careen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab dagaalka ayaa ahaa mid xoogan waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay deegaano dhowr ah ay ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku guuleysteen inay isku fidiyaan waxayna ciidamadu haatan ay la hadlayeen howlgallo ay ballaaran ay ka wadaan gobolka Hiiraan howlgalka oo saaka bilowday ilaa soo gaaray galabnimadan ama maqrinimadan ayaa waxay ciidamadu ku guuleysteen in guud ahaanba cagta ay mariyaan fariisamadii kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay kaga dhuumaalaysan jireen gobolka Hiiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale howlgallo baaritaanaha waxa ay ka wadaan tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan waxayna ciidamadu ku raad joogaan farxadka koox ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab daawadayaal saad muuqaaladeena aad ku aragteen waxaa loo daatay godadkii argagixisada Al-Shabaab iyadoo difaaci dhowr ay nabaddiidku ay ka qoteen deegaanadaasi ciidamadu ay u daateen waxayna sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen kuwa deegaanka inay hub tiro badan ay ka soo furtaan iyo gawaari kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab dadka deegaanka ee gobolka Hiiraan oo si weyn u abaabulan ayaa waxa ay ku guuleysteen sidoo kale in ay burburiyaan maxkamadiyo beenaadina nabaddiidku ay ku lahayn halkaasi waxayna sidoo kale ciidamadu ay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii maanta ka dhacay gobolka Hiiraan waxa si xawli uga soconaya howlgallada ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ayaa la arkayay iyagoo gaafureegaya tuulooyinkii maanta ay gaareen waxayna sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan godad ama difaaci waaweyn ee kooxda argagixisada Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan Burdaar waxay ka mid tahay goobihii maanta sida weyn ciidamadu ay howlgallada uga sameeyeen waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka ay sidoo kale ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan dhowr difaac nabaddiidku halkaasi ay ku lahaayeen mid ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaya oo la xiriirnaa wuxuu noo sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaanba ay cagta mariyeen fariisamadii nabaddiidku ay ku lahaayeen waxayna sidoo kale ciidanka ay ku guuleysteen inay burburiyaan difaaci dhowr ah nabaddiidku ay ku lahaayeen halkaasi wuxuu kale inoo xaqiijiyay in howlgalladaasi ay sii socdaan si wanaagsan ciidamadu ay uga howlgalayaan guud ahaan fariisimadii ciidamadu ay howlgallada ay ka sameeyeen gobolka Hiiraan waxa uu qayb ka yahay goobaha sida weyn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga sameeyeen howlgallada waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen in guud ahaan bay cagta mariyaan fariisimo muddo dheer ay ku dhuumaalaysan jireen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab galca TV ayaa soo ogaaday in maanta dagaalkii ka dhacay deegaanka Burdaar kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab in lagu dilay ilaa 32 dhagar qabo oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ama ilmaha ay soo qaldeen kooxda waxaana sidoo kale halkaasi lagu dilay 4 horjoogo oo ka tirsan kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab
muuqaalada aad aragteen oo aan idinkaga keenay furimaha hore ee dagaalka ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay ku gacan sareeyeen dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Hiiraan waxa ay qayb ka tahay goobaha sida weyn howlgallada ay uga wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka waxayna ciidamadu ee guud ahaanba hadda ay kaabiga ku hayaan goobo badan oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan khawaarij al-shabaab howlgalladan oo si saf ballaaran ku socday inay si wada jir u wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale ciidamadu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab kuwaas oo dhaawac ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay gaadiid dagaal ay ka furteen kooxda khawaarijta waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen inay dhowr jaha ay ka weeraraan deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan argixisada al-shabaab waayadanba waxaa si xawliya gobolka Hiiraan uga soconayay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona ciidamadu howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Hiiraan ay guulo waaweyn ay ka gaareen saraakiisha ayaa inoo xaqiijisay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku gacan sareeyeen dagaalka wuxuuna dagaalku ahaa mid si weyn u culus iyadoona ciidamadu ay adeegsanayeen hubka culus ee darandooriga u dhaca iyo madaafiicda goobta sidoo kale dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha dawladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka iyadoona halkaasi ay ka sameeyeen duqeymo aad u waaweyn wararka inaga soo gaaraya dhulka hawdka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in argagixisada al-shabaab ay jiiteen dhowr meedada goobtii maanta dagaalku ka dhacay waxaana sidoo kale ciidamadu ay soo heleen raadka koox ka tirsan nabadiidka al-shabaab oo jiidanaya meedkooda waxayna ciidamadu sidoo kale ay gacanta ku dhigeen difaacyo ama dhufaysyo dhowr ah oo nabadiidku kaga gambanayeen duqeymaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka wadaan gobolka Hiiraan waxay qayb ka tahay goobaha sida weyn ay ciidamada howlgallada ugu wadaan waxayna ciidamadu ka gaareen howlgalladii Hiiraan ka dhacay guulo aad u waaweyn daawadayaal wax kasta oo ku soo kordho howlgallada ciidamadu ay ka wadaan gobolka Hiiraan channelkeena Galcad ayaad ka daawan doontaan waa mahadsantihiin fadlan subscribe inoo saar channel